dadka hadda aniga hooyadii dhashay u heelinayo hooyada ma la hadashaa telefoon soo dirdira intee jireen waagaas wax yar idin sheego araba inaan idin sheego maadaama aan ka hadlay in hooyadii dhashay inay iga tagtay kadibna aabe iga tagay marka dad badan ay soo qorqoreen waxay yiraahdeen sababtii la iga tagay ayaga ma ogi dhibka aan tabanayo hooyo sida ila dhaqanto un baan sheegay inay iga tagtay moogtahay marka maanta waxaan rabaa inaan idin sheego asaaskii wax yar idin kaga sheego marba kisba idin sheegi doonaa laakiin maanta waxaan rabaa asaaskii ugu horeeyay sababtii la iga tagay iyo meeshii la keenay eeda gurigeeda sababtii la igu keenay waxaas wax yar inaan kaga sheego marka aabe guri meel xamar ku taalo fiyaad la yiraahdo maqaayad ku lahaa aabe meeshaas uu joogi jiray ana kaliya guri liiga tagay gabadha xoogaa iga roon iskool inay aad jirto umaleena iskoolaa la geyn jiray aabe mootada ku qaadi jiray iyo gabar kale iyadana aabahay dhala iyadana guriga hooyadeed meeshaas guriga hooyadeed ahayd iyadana iskoolaa la geyn jiray marka meesha liiga tagi jiray waxaan xasuustaa anoo aad u yar in la ii soo dhiibi jiray caanahan ma taqaan hadda Yurub ma taqaan albaabada hadda waa laga ilbaxay albaabada la isku dhigi jiray oo dhaladaas ku jira wallahi la ii keeni jiray aad baan u yaraan ma awoodin kaliyan guri ah ma awoodin in caanaha meel ku shubto ma awood asagana wiilkii maqaayadu ka shaqeyn jiray igu soo dhiibi jiray fiyaad maqaayad ku taalay ahayd asli ima dhigi jir meel ku shubo wallahi waxa aad u yaraan istaag in caanaha xoogaa ka cabi jiray oo dhalada u celin jiray dhalada caanaha ku jirto u qaadan jiray ka hor oo hooyo markay iga tagtay aabba meesha joogo aabba wili ma bixin aabba meesha joogo eeda joogta eeda marna way maqneed marna way joogtay marka eeda intaan la geyn waxaan xasuustaa dib isoo gaara xasuustaa horta waxay u dhacay mooga dhinacaan feeraha dhinaceeda waa iga madow yahay waxay u dhacay moogeen gabar walaashay ii sheegtay waxay ugu tiri caano karkarayaad ku dhacdaxday saasay igu tiri saasaan ku gartay isla gurigaas buuq uu dhacay oo aabba uu baxay uu xanaaqay ana lay qabtay dhagta lay qabtay musqusha laygu tuuray marka musqusha laygu tuuray waxaas waan kufay laakiin waan istaagay marka istaagay waan garanayay waa ogahay in musqusha la fariisan marka waan istaagay marka istaagay mugdiye in musqusha guriga nal wuu lahaa laakiin musqusha mugdiye sababta ma garanay marka waan taagnaa in la cariisayna waan gartay waan taagnaa musqusha dhex taagnaa kadib kale musqusha loo baahana waa layga soo bixiyay waan xasuustaa waxaan xasuustaa in ilmo yareer cunto la siinaayo aniga la ii diiday aniga iyo gabadha iyo hooyada inay tahay u maleena iyo ilmo kale ay joogeen xataa war uma hayo way joogeen ilmo kale waxaan ka ilmaha la buriyay inay igu jireen war uma hayo waxaan ka xasuustaa aniga ahaan xasuustaa in cuntada la iga buriyay oo la igu dhahay bax orod marka guriga meesha salootada ay gadaala jirto meesha idin sheega oo dharka lagu dhaqo meel dharka lagu dhaqaa jirtay oo lagu nasto gadaal ku taal dharka lagu warwarto meesha jirtay waxaan xasuustaa in lay burin jiray halkaas mara xasuustaa lay buriyo oo lagu yiri orod naga tag oo intaan soo dhudhuuntay aan saas fiirinayo cuntaas la cunaayo oo layga bursaday intaasan ka xasuustaa intaan eeda la ii keenin intaas xasuustaa marka calay xal buuqa dhacay aabbo wuu joogay aabbo wuu shaqeyn jiray wuu bixi jiray wuu soo noqon jiray mooto wadan jiray marna baawr cad wadan jiray marka waxa dhacday aabbo habeen baray ahayd waa marka eeda lay geyn doono eeda aabal la ii geyn doono marka waxaan rabaa inaan u fahmin inaan hooyo iska dhaleeceynaa kaliya inaad u fahmin dhibka soo gaaray ila fahantaan markaas idinka go'aan ka gaara ina hooyo ina cafi inay tahay iyo hadaa doontaan ani ma kala jecliyeen qof yiraahdo waxba kama qabo qofku inuu yiraahdo aniga dadka xataa block ma saar markay dhahan hooyada iska cafi 9 bilood soo qorqoraan aniga dadka caaytama un baan block iska saaraa dadka ummadda waxa uu sheegay dadka fiican aan jiro oo aqbalin oo dadku xun aan ku qalday in mar hadaan soo dalbaday aan aqbalay in mar raba soo dalbadaan laakiin aan arko waa Facebook xilligaas samaysteen ceel suuqina ay soo galaan ma rabo marka sheekada idin waday mar guriga waa idin sheeg gurigaas oo eed inta la keen aabala la ka hor gurigaas aan joogo marka gurigaas laba mar oo maleen ugu idla aan ka dareen wiil adeerkay dhalaa joogay mar eed aab qabo ilmo haysta joogtay mar eed aabala dhalato kale aad timid madaxayna iga bugta xasuusta madaxii ii xiiri jirtay wiil adeerkay dhala hadda uu dhintay ilaa uu naxariisto aad aan jeclaa guriga wax ka joogay marka saas dhibaatadaas kala soo kulmay laakiin habeenka eed la ii keen doono waxay habeen buuq dhacay aabba wuu carooday habeen mugdi eed waa kulli waa jijifnaa buuqyaan ku kacnay ani ahaan waa kacay marka aabba wuu carooday aabba wuxuu go'aan ku gaaray aniga iyo gabadha iyo hooyada inuu gurigaas naga wado uu go'aan ku gaaray marka dhara warwaran oo qoyan dharkii qoyanaayo aabba soo qaad dhar qoyan uu igeli laab qoyan waa xasuustaa wallahi iskool ma gaarin
6 sano meelahaas ma jiraa mise 5 sano jira ma garana waan yaraa marka wallahi hasta gabadh inuu soo kiciyay ila dhalatay oo hooyada ay soo kiciyay uu kiciyay dhar uu igiliyay dhar qoyan uu igiliyay laabqoyn mootadu nagu qaaday wuu i waday guri markaas meeshaas waa fiixaani marka wuu i waday wuxuu ii geeyay eedo markuu ii geeyay walaashay way saaran tahay iyadana aba aan nahay oo markaas reer leh uu wadaa uu kala qaybina maqtay marka aniga eedu ii wadaa eeda asaga la dhalato ii wadaa walaashiis ka weyn ii wadaa marka mooto u soo qaado gurigii anu waxba ima sheegin waa iska soconaa wada walaashay laakiin waa dareemay inay wax jiraan inkastoo aan yarahay in habeen bar aan mooto la isku qaadin oo dhar qoyaan la isku gelin waa dareemay inay wax jiraan waxay yihiin ma garanayo waa la soo waday guriga eeda la keenay markaas eeda iyo ahmaleena eeda kale xataa way joogtaa markaas meesha waa la casheynaa musbaxa shidan guri waa mugdi eeda laba guri leedahay guri nal leh oo saraa jiro iyo guri aan sar ahayn oo nal leh marka gurigaana la keenay aabbo uu soo galay gacantu ihaayaa uu soo galay eedo iyo dadka fadhiyo way casheynayaan musbax baa shidan marka eedu la hadlay eedo way gartay wax jiraan qof ilmihiis habeen bar wado waa garanay ma inay jiraan bas wuxuu sameeyay eedu waxyar la hadlay aniga waxa ila hadlay eedu la hadlay bas waxyar ka bacdi aabba ma fadhiisan cuntana muu cunin ilaan gabadha kale uu inuu geeyo magta uu wado walaashii kale aabba dhalay inuu u geeyo rabaa marka wuxuu sameeyay aniga waxaan moodi doonaa waxaan isleeyahay wax kale wax waa dhaceene bas eedu la hadlay eeda la hadlay aabba horu ka baxay gabadha kale walaasheed iga weyneed hooyada aan ahayn uu gacanta qabtay aniga waxaan isleeyahay kulli arintu u yimid wuu hadluu bixi doonaa isla wada bixiyeen waan raacay waa istaagay markuu aabba baxay uu gabadha kale gacanta qabto isla nimid uu baxay aniga waa ka dhaxas aabba amuu ku iloobay wallahi ilaa hadda waxaan u maleysay inaan u jeedo kulli basawir ay yihiin waxaas aabbu ku iloobay markaas waa ka daba orday dhab gacanta leysii marka gacanta leysii waa la reebay waxaas dhahay way qaldameen qof kale ku qalda aabba laga ma reebay marka aabba gabadha kale wada wuu iska baxay walaa ma salaama iyo intaan kaaga tagaa iyo male wuu iska baxay marka wallahi waan ka daba ooyay waa la soo qabtay marka way casheynayeen marka la soo qabtay meel ay fariisiyay cashadooda iska sii wateen ani waan taaganahay aabba bax ooyin waan baroortay aniga dhulkaan isku garaacay waan baroortay wax fiiri wax ila hadlaa iska marka kaal cashee la yiri anuu ooyinaa oo intaas saga tirtiray waxa la yiri kaal cashee waa diiday markaan diiday eedada la ii keen maahan mid kale oo joogto hadalkeed ilaa hadaladeedan ka xasuusanaysa oo hadashay moqt way fadhido waxay tiri intee xogaayar la qofka salaxay ayada cuni doonto la iska daayay ismaan cun habeenkaas waa isna iska qashuucsanaa waxaas adduunyada wax u dhaceen saacad ugu dambeysay walaalaha la joogtay la jiiftay haddana guri aadan weliga arkin aan garanaynin seel lagu soo dhex tuuro lagaaga tagay wallahi bilaahi waa malaysan waay adiga meeshaan iska joogo waa murugaysnaa marka gurigaas dad baa leh eedo wax fiican ay ku sameysay maxaa oo u sheegi laada aniga wax xun iyo wax fiican isma barbar dhigaayo aniga wixii ugu dhacayaan raba inaan idin sheego si ummadda ciyaalka ummadda Soomaaliyeed loogu naxariisto idageysataan wax laga bedelo caruurta loo naxariisto caruurta qofkii dhalay iyo qofka loo geeyay kaliya mas'uulka ma aha dadoo dhanaa mas'uulka ah cunugan weer yahay isma xanaaneyn karo wax ma samaysan karo dad iska ma celin karo ما هذا الكرو عد ملها سومالي المها لما هذلان والله بالله بس حسنا ولا شيء مرضى ما أركض دونتا ولا شيء ويب بحذ ولا شيء مرضى ما أركض دونتا مركب ويب بحين مرة بحسب ترتيب الحفوش يا جماعة مركب ماشي أسأل جوجي هاي قصو جاري لب ترى بدنا يقصو جاري وان كنت دقرمي ولا يقول دقري لين عم مدح لين عسى دقرن gabar weyn macallimada ay daqartay dhinacaas ay daqran waxa ay soo gadid kari waa diiday macallinka dugsiga ii jeeday waxaan ku macallinka dugsiga ii jeeday waxaan ku soo galay marka way daqartay dhinacaan daqar weyn ana mar xiiri doon in soo tusay musurku waa soo galay ana live waa soo galay saa u ogaataan qofkaas aniga inaan ahay madaxa inta uu daqran yahay marka madaxa uu daqran yahay marka eed isbitaal ay geysay waa la soo tolay ana hadda la soo tolo faashid la soo saaray أبي غريمد أبا نغريمد أبا ورقة قعنت وطو أحمر وين ونغريمد أنا إلى مو هذا مو بين محاكو لعب إيد ولا هذا محاكو لعب ومقلع يعني ورك إيد محيتري
ciyaalka dugsiga daqreynay dhahad ana ma hadlin bas waa iska soo baxay guriga nimid meeshaas daqara ugu yaalo madaxa laba mara leegu dhuftay laba mara wala halkaas leegu dhuftay marna waxa leegu dhuftay maqaar eedaday maqaar ka ganacsan jireen maqaar majmihiisa wato oo qoyan anta lay bursaday ayeeday oo naafe oo meel jiifto aan gadaasheeda galaan ku ooyaan ayay wixii la soo xitay gabadha ka tag ayay ma fariisan karin laakiin gacantay ka hadlaysay ayay iga celisay xitay gabadha ka tag gabadha marka sariirtii atiirka ayay ku jiiftaa noo dhaxayso marka maqaarkii majamaha lahaa asariir korkeeda la igaga soo tuuray madaxaas igaga degtay wallaahi madaxa qacda ka yartay ilaa hadda wallaahi wax xasuusta halkaas iga deg mirka iga tagi rabay marka sariirtan qabsaday halkaas iga dhacay qaaca iga baxay halkaas la igu dhuftay mar kale oo la igu dhuftana waxa way madaxa dhexdiisa habeenay ahayd ciyaal waa yaraa wal ciyaal la ciyaarayay ciyaal oo dariskan la ciyaarayay waxaan iska dhahan maanta cawad dadka aan dulmino darina ku fadhinay guriga barkadiis guri eeda eleed barkadu lahaa barkadaas darin noo saarnay markaas aan darintan qaarna uga fadhina qaarna waa isku soo hubinay qaadka isku soo hubin qofkii didka maraa intaan magaciisa sheegna ama ku dhahan ka nixino darinta hoosteeda galayna eeda wax loo soo sheegay ma aqaan saddex unuga ahayn eedo soo haaday oo iga soo dhaxbixisay ciyaalka guriga i geysay iyo lama hadlin maxaa sameysay iyo meesha ku jirta maxay tahay midna ma dhihin madaxay waxay iga dhuftay horta dhulka igu dhufatay markay dhulka inaan ka caaray waa qeylideena macna waa qeylin jir marka la dilo suxuna oo qeylin jir afkan ku fogeyn jir marka waxa mugdiya wallahi waxay u dhuftay maxsuub wax weyn halkaas iga dhuftay bartamiisa malaha ma saa u aamuso ani dhulka ila gariirabo madaxa ayaantan aan ka xanuunsanaa maanta ku toombar wallahi madaxiga ma dhaqin halkaas duu igu soo kaco haddaan 5 kaniina cabo iyo 20 kaniina cabo waxba iga mataraayo waxa muddo boog dhaxda ku taalo kale waa kaligeed in iska raysataa oo gabar iga duceysay foosiya la dhahay Scandinavian joogto waxay ugu tiri madaxa uu qarxan rabay waxay ugu tiri madax saliid ku shub madax saliidan ku shuban xiray xogaa markaas uu iroonaaday marka si xun aan ii dili jiray walaalahay deganaa deexaani cid walaalahay aan la joogo aan ka soo tagay la iga soo waday aan u tagi jiray aad aan u jeclaa iskoolka waxa la dhihi jiray wir meel aad iskoolka taqaanaa qamiis la soo deen jiray qamiis jimcana fasaxa lahaa qamiis markii la soo deey guriga eedaday bonder kuma soo leexan jirin walaalahay aad jiray beexaan shaleemada ka soo horjeedeen guri farxad waa caana boora lagu cabaay waa la qoslaayay walaalahay aad aan jeclaa siibatan weyn wallahi aad aan jeclaa soo dhaweyn jirtay qalbi furnay way farxad jir markay arkaan way soo galaan ayaga la ciyaara waxa iraacaw shaleemada maxaa socdo way iga sheekeen xilli cali dheeraa socdo daraaman daraa socdo waa raaci jiray laakiin farxadaas waxa ka dambayso murugo waa la iga daba imaan jiray waa la qaban jiray waa la qaraaci jiray guriga la geyn jiray si u bixi kartaa waa la qaraaci jiray laftan qaada la jibin jiray marka intan jidku ku sii socdo oo lay wado إلا إن dadka jidka loogu diro miskiinta gabadha maxaa u dilay al dhaha magta gabar hooyada dilaysa loo maleeyo gabadha maxaa u dilay marka san dadkan u arkin anna leey dilo gacanta leega hayo maqaarkeeda la isku lisi jiray anna waa ooyna dadkan waa yaabin xilaa gabadha maxaa waa looda maxay u ooynay wallahi gacanta aan leeyahayo maqaarkeeda la isku lisi jiray si xanuun ah ma garad marka dhibtaasan soo arkay mar walba aan dheel aad mar walba dheel aad la qaraaci jiray marka walaalahay aad walaasha way iga celin jirtay xilii jirtay maxaa walaashi ka rabtaa gabadha biixaan gabadha jecla afar waa ilmo gabadha ugu weyn wallahi aad jecleed aad iga celin jirtay eedo hatta way sheegi jirtay markay eedo soo gasho guriga safta intaan koran gadaal ka boodi jiray aan gadaal ka boodi maasaas ku baxsana xaafada igu dhex buusan jirtay marka aanu ka ordo caata aad uma ordi jirin caata oo tabar yara aha marka ordo mar waa isku soo horguman jiray markaas codka inta laga hor maxay jiray maando ii qabo qof ay qabanaayo qofku markuu qabto ma awood inaan dhaho si daawalay dila ma dhihi jirin ana oo ina la meesha leegu imaanaa la qabanaa jidka saasa jidka inta saasa leegu sameeyna guriga markaan aan joogo saasa la qaraaca marka waxa aan banooni dheelaayo ee guriga soo gashay meel aan ku ordaan garin waay geedan koray geedki markaan koray geed weyn oo la isku qarsanaa ma aheen geedki markaan koray lama soo kori karo ma soo kori karto wallahi waxa meesha aan ku dhex jiro geedka leegu tuuriyay dhagaxan soo qaat geedka leegu tuuriyay waxaasna kulli dhagax uu ku dhacay wajigu kaagan ee wajigu un baa qarsaday wajigan qarsaday waa leegu tuuriyay marka waan idin sheegay dabaan ku dhacay dab waxaan ku dhacay aad karkaraay saliid subag ma aragtay hilib waxa lagu soo cadiin shilmatay oo karkarayso anoo hadda soo qabayso seexan rabo
وحاسة لبي تمنجير تحت تمنجير ما أقام حاسة حاسة عادة يتمنى أنا دعمها الواس وكلا هاي ولا شيء أباها عن سوية عن هاي أقول قاسي من صوبته كنت من والله ما قرنا ويت من أيضا ده أهلا وحاه بابا لمن لها يقف مسكوش جيمه هي سنين قف قربها يقطع مه هي سنين لكن اللغة سحن أو قلتي لبعض قعمات أن قشت السبقي وإن واحد تنا كم ده أنت سجبن أنت عن تلفون فوقها ويجبن تاي لغة سحن يجبن ما سوى ذا قلنا ترى بكم مالوق رحمة لوق ترى هذا يدين صوره قارب سو قلنا دونا أن صور دونا أنا جينا هنا أنا لايف كجرا إنه تسي دونا مركا والله واحد أنا قلتي أو قفت مركو سحن قلته ما أدمو أوي كرو وأوي لكن أوين أو وري عندها ما هينين لقطة قاعد وفرق أن فدين كعوا لقطة سحنا أو قربتي سيدي أنا كوجا لانقش أنا هرداي إيه ولا قال لي بيرسوبك إيه ولا يدا حبت إيه ودكنا إيه ولا إما يدين وكدلا لكن حيث كتر إن إيه ولا أنا فرق إيه ولا قناعه أنا ولا قايو إذا وحاسل قلما يسكب بحين مسألة دي كده هذا أنا ما دحين جيل بسارتو ليش أكو جندي ما قدر حاسة تاسع يوم يردميس أنا سليدي كركرة صوبك كركرة كوجا لانقش حسوستا marka wallahi isbitaal leema geenin waa la soo qaaday guriga bartamihiisa la dhigay in darin la dhigay in joodariga ku sixan jir la dhigay wallahi ma garanaay guriga bartamihiisa la dhigay lugta waa ka fashburuud waa guban tahay gacmuhu waa guban yihiin cambuurkii aan ku gubtay wallahi inaan leega bixin saliidiisa subag asoo ka da'aayo meesha la dhigay dadka dhan way kala sixdeen laba qof markaan gubana dhulka fadhiyay yimaadeen ayagana dhaxe qofkii afkii ugu akurdeedu waa gabadh isku hooyada aan ayadana laga tagay ayada masku sheekeyn jirtay ayada ayaa joogtay isbitaal leema geenin leema daryeelin hilibkayga luqta inuu soo urur bilaaway oo guriga marka gabar kale oo guriga aan ku gudbaan guri kara leegeeyay anoo gurigaas joogo ilaa luqta eedo waxay sameysay markii subaxii habeenka aan gubtay subaxeedii qoray soo qaaday ee biyihii iga babajisay ayadu kale walaagay ka wada u maleynaayo biyihii ka babajisay marka luqta infection ay qaaday isku qorantay jilibka isku keedagay dhinaca jilibka dhinaciisa isku reystay marka aadna umur islaam xogaa isku reestay marka marka eeda aragtay istaag socay ugu tiray markaan socday waxay aragtay anoo dhuutinaayo lugtu waa la kala jiiday dhiiga ka soo daatay ilaahay maqla hadaan qof nabo ilaahay ma bii cafiyo hadaan qof bini aadan aan nabo wax ka sheego ilaahay ma bii cafiyo ilaahay waa aaminsanahay ilaahay ma bii cafiyo hadaan qof bini aadan aniga aan wax ka sheego ama aan nabo oo ma hadal xataa aan bunbuniyo ilaahay ma cafiyo marka aniga dib badan ay soo gaaray daqara ay soo gaaray madaxa in lagu dhufta ay soo gaaray geed in lagu tuuriyo ay soo gaartay in la daryeelo way aan gubta ay soo gaartay in la dila ay soo gaartay wax walba aniga lugahayga eedada uga tagay 14 sano aan jira eedada ka dhaqaaqay waa aabay wuxuu ugu yiri aabay guriga yaqshid ka gato guri weyn oo 5 qol oo aad u weyn uu ka gatay inta aabbo dhan meesha iskugu timid eedada way iga daba timid waxay tahay iskool ay leedahay dugsi ay leedahay iskool barwaad ay leedahay raaci yiri eedada istaag aan raacay anima ku afcilin kara asaga marka baawlku ka dagtay guriga wax ka doonto guriga intuu ku maqnaa adeera meesha fadhiyo adeer kale fadhiisa meesha fadhiyo eedan la hadlo ku jeesta waxa yiri ani maxay daba socdaa waxa markaas waa hadal kale afka dabana jira habeenna kuma rabo maalina kuma rabo hadda ay wadan haddan ka soo noqonaan ku eray waa la wada guriga aab gurigeedu ugu tuur subaxina waa ka soo dhaqaaqay dooraan isku aabano jeclo ku biixaan degan afarta dharka xataa waxa aabbaay waxaan ku guriga soo marno idan way jecleedbo aba ani gurigaas mar rabo inaan ku noqdo dharkay ii soo qaad dharka xitro loogu soo tuur dharka ku ii soo qaad dharka marka aniga dad waxay leeyahay qof weyn aad tahay maxaa wax iska sheegay waxaan u sheegayaa dhibaatada aniga hayso Soomaali ciyaal Soomaali haysa ajirto aniga ehelkay intuu jiri dadka hadda aniga hooyadii dhashay u heelinayo hooyada ma la hadashaa telefoon soo dirdira intay jireen waagaas maxay soo salaami waayeen maxay dhihi waayeen gabadha ilmihii laga tagay caaw hadda dad yeeshta ayada labadana ayada dhibana matalaayo ayada careysan ayada dhibana matalaayo dadka ani maxay ugu imaan waayeen ehelkayga ma aha reer aabahay aaway maxay ugu fiirsan maxay ii imaan waayeen guriga zabaa lagu karin jiray awoogay lagu xusi jiray wana la qali jiray maxaa hal qof oo taxsiid ku xuskaas u imaanay hal qof inta ii imaaday idhahay male seetahay malaha hal qof lii keenay hal qof inta idhahay ilmaha waa la soo xalay aaba haduu imaana kaala soo fariis cuntada cun qofka isaaray wali qof hab isii ma arkin nolosheeda qof hab isii ma hooyada aaba haduu hooy ma arkibo aaba haduu imaana kaala cuntada socod hab maxaa liisii way maxaa leeso dhaweyn waay dadka hooyada dhashay dadkeedii aaway xamaray joogeen maxay igu imaan waayeen
dadka reer aabe maxay ugu imaan waayeen dadka guriga jooga maxay ugu hilin waayeen hooyada ayaga dhashay iiga celin waayeen leegu naxariisan waayeen dad cilmi lahaa jooga maxaa isbitaal ii geen waayey ya maxaa leeyahay lugtaada way soo urtay maxaa la ii caynaa maxaa naxariis darrada maxaa dhacay ani qalbi xumaan ku soo koray rafaadaan ku soo koray hooyo abuuligay ma arkin ummadaasaan u sheegaa maanta waxaa ila soo xiriir wiil yiri baayo waxaan rabaa ciyaalka u dooda wiil Soomaali ciyaalka u dooda waxaan rabaa wax inaan ka bedelo ilaahay waxaan ka baryaa in wax laga bedelo waan idin soo sheegaa laba mar oo video kale aan soo duubi doonaa inaan ku dheereey mar rabo ciyaalka u naxariista ehelka ciyaalada ay haayaan u naxariista